siyaasadeed oo hor leh ayaa ka dhex bilaabatay ama ka dhex aloosan dalalka reer galbeedka iyo dalka Turkiga kadib markii dhowr dal oo reer galbeed ay xidhaan ama albaabada u laabeen safaaradaha ay ku lahaayeen dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul konfliyeed ay ku lahaayeen ay xidhaan. Turkiga ayaa xaqiijiyay maalinimadii Jimcaha ee bisha February 3 in qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Jarmalka ani wax macluumaad oo ku saabsan khataro dhanka ammaanka oo sheegeen aan la soo wadaagin dalka Turkiga. Khatarahaas oo qiil ay uga dhigeen xidhitaanka konsuliyadaha ay ku leeyihiin magaalada Istanbul. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in hadda shaqada konsuliyadaha iyo safaaradaha dalalka qaar ay ku leeyihiin dalka Turkiga ay tahay mid ulakac ah oo leh ujeedooyin siyaasadeed oo qarsoon balse ay marmarsiyo ka dhiganayaan in dalka Turkiga ay ka jirto cabsi dhinaca nabadgelyada ah. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa weydiiyay haddii ay jirto khatar argagixiso soo ma habboona in dalalka ama saaxiibada iyo xulafadaba nahay noo sheegaan halka ay ka imanayso khatarta iyo cidda ka dambaysa. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday wasiirku in aanay jirin wax xog ah oo ay hore ula soo wadaageen dalalkaasi oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada ee ay ka digeen, isagoo eedayn u jeediyay wasiirku wadamadaas kuna tilmaamay kuwo dano gaar ah oo ay leeyihiin u sameynaya ficilkan. wadamada reer galbeedku ay ka mid yihiin Faransiiska, Britain, Germany iyo Netherlands ama Holland ayaa maalmihii la soo dhaafay ku dhawaaqay inay si kumeel gaar ah u hakiyeen adeegyadii xafiisyada konsuliyadahooda ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ay ka jireen. Shaqaaq oo khamiis ahayd Ankara waxay u yeedhay 9 dal oo reer galbeed safiiradooda iyadoo oo fartay fariin u diiday inay ka soo horjeedo tallaabada ay ku dhaqaaqeen iyo marin habaabinayaan adduunka. Haddaba maxay tahay danaha ama ujeedada ay ka yeelan karaan ama ku hoos dhiigan arrintan ee reer galbeedku ay sameynayaan? Dadka u dhuundaloola arrimaha siyaasadda dalka Turkiga iyo xiriirka ka dhexeeya wadamada Turkiga iyo reer galbeedka ayaa ku tilmaamay arrintan kuna macneeyay mid ay rabaan in dhaqaalaha ka soo gala dhinaca dalxiiska Turkiga oo sanadkii 2022 kor u kac weyn sameeyay inay ku wiiqaan. taasoo ujeedada ka dambaysa wiiqitaankaas ay la beegsanayeen xilligan kusoo beegan ay tahay in madaxweynaha dalka Turkiga cadaadis dhaqaale la saaro si shacabku ay uga soo horjeestaan oo codadka ay u siiyaan mucaaradka. dalxiiska ayaa ka mid ah ilaha dhaqaalaha ee dalka Turkiga aad ugu tiirsan yahay iyadoo saf markii COVID-19 ee 2020 markii uu dilaacay dalxiiska guud ahaan dunida oo hoos dhac ku yimid dalka Turkiga ka mid ah dalalka dhaqaale ahaan uu saameeyay ayaa sanadkii tagay ee 2022 waxaa dib u soo noolaaday dalxiiska guud ahaan dunida gaar ahaan dalka Turkiga ayaa ka mid noqday 5 dal ee dunida tirada dalxiisayaasha ugu badan ee booqdeen sanadkaas. inta badan 50 milyan oo dalxiise ayaa booqday dalkaas sanadkii la dhaafay. warbixinteena halkaas ku soo gabagabeynayna fadlan وسمعتين في ذات تعاوني سين مدقيتين كانت تلسراد نوصار في على يستعلان كومنت نقرب أصحاب هذا لسي وذات مع التجديد.